حنقموع سيدا قبن عقاكم يوضي قردادك وقادا قردادك وقادا وحنقموع سيدا قبن عقاكم يوضي قردادك وقادا قردادك وقادا Badaniyo gajiyo dibta ugu gagsanaya Badaniyo gajiyo dibta ugu gagsanaya Wagayigayga geesaha iyo gudaha inaan cadow ka soo galin wagayigayga geesaha iyo gudaha inaan cadow ka soo galin uguntade allahayo hawshaygu gargaar uguntade allahayow hawshaygu gargaar sida gamaana ma gawaari hubka ugu gurguraya waxaan guudka sida gamaana ma gawaari hubka ugu gurguraya garab qarasho kula orod gabalka ugu ridaya garab qarasho kula orod gabalka ugu ridaya wagayigayga geesaha iyo gudaha inaan cadow ka soo galin wagayigayga geesaha iyo gudaha inaan cadow ka soo galin uguntade allahayow dhalinyaradan qaar waxaa ku jira master degree ah qaar waxaa ku jira bachelor qaar secondary qaar dugsi dhexe ku jira ciidankan wuxuu ka duwan yahay wax badan kaga duwan yahay noocii ciidan oo hore aan lahaan jirnay markii ay dhaxday dawladda dhexe Soomaaliya ciidankii Soomaaliya uu iska baaba'ay laakiin ciidanka waxay kaga duwan yihiin dalkeena masiibo baa haysata oo ah daraaga oo ah midka shacabka iyo ciidanka dhibaato u geysta oo koow ay ka tahay qijaadka iyo noocyada kale la wadaaga maskaxda qofka aan dejin dhibaateeya jirkiisa daciif ka dhiga ciidankan lagama helo nin jaad cuna haddii ay naga maqnayd maanta inaan ka fikirno tusaale noocee ah ayaa loo heli karaa dalkeennii in dawladnimadiisa ay soo noqotay ama uu ku socdo dariiqii dawladnimada waxaa tusaale u ah ciidanka dhallinyarada ay hor fadhiya waxaa qalbigayga qaaday markii aan wiilasha la qadaynayay waan weydiiyey xaggee baad ka timaadeen
mid yiraahdaa waxaan ka nimid baydhabo mid yiraahda degmada hodanaan ka imid mid yiraahda beledweynaan ka imid mid yiraahda jowharaan ka imid mid yiraahda garawaan ka imid waxaa qalbigayga qaaday wixii la dhihi jiray Soomaaliya wixii la dhihi jiray sharaf iyo karaamo wixii la dhihi jiray halyey qaran iyo dawladnimo waxaa qalbigayga qaaday wixii la dhihi jiray geesiyaashii ama libaaxyada Afrika oo ahaan jiray ciidamada qalabka Soomaaliyeed ee Soomaaliya libaaxyada Afrika ee la dhihi jiray geesiyaashii ahaa ciidamada qalabka sida waxaa tusaale u ah maantay waxaa horteena ka muuqda dhalinyaro Soomaaliyeed oo u soo istaagtay naftooda inay u hurto qarankooda iyagoo aan gobol ka imaan qabiil ka imaan qoys ka imaan mid ka mid ah ayaa intii yareedaan soo lugeynaynay markii aan ku yiri diyaar muu tahay inaad dalkaada difaacdo wuxuu yiri waxaan sugi lahaay intaan nafteeda ku bixinayo difaaca qaranka dalku wuxuu idinku leeyahay waajibaad waa inaad ka soo baxdaan waajibaadkaas idinkuna waxaad dalka ku leedihiin xuquuq waxaan idin ballan qaadayaa inta anigu aan ra'iisul wasaare waddanka ka ahay madaxweynaheennana uu farmaajo yahay xuquuqdiina inaa helaysaan